السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود على dhegeystayaal ku soo dhawaado qiso cajiib ah. halkan nagala socotaan waa channelka Tolmone Production. qisadan soo gudbin doona insha Allah taala waxay ku saabsan tahay maslaxada dadka la kala maslaxayo faa'iido laga helayo. Tolmone Production waa tulkiina ee ku toolnaada fadlan like, subscribe, share haka bakhaylina mahadsanidin. nin ka mid ah reer banu Israa'iil ayaa waxa uu ahaa nin wanaagsan, waxaana uu lahaa xaas wanaagsan. maalin walba waxay u tashaa suuf, markaas bay u dhiibtaa, isagana suuq ayuu la aadaa, wuxuu ku soo iibiyaa dirham ayuu ku soo iibiyaa, markaas bay nafaqaystaan oo dirhamkaas ayay quutaan, wax cunto kala baxaan. qaybna suuf kale ayuu ku soo iibiyaa, markii dirham uu ku iibiyo suufkana qayb kale ka soo iibinayaa. maalin maalmaha ka mid ah ayuu ninkii wanaagsanaa waxa uu arkay laba nin oo suuqa dhexdiisa isku dagaalayso, wayna caytamayaan oo iscaayayaan, midka kale ayuu caayayaa. markaas buu ag istaagay, waxa uu yidhi maa sha'nukumaa, war xaalkiinu muxuu yahay, maxaa idinku dhacay, maxaa isu dagaalaysaan? midkood ayaa waxa uu yidhi ninkan dirham ayaan ku leeyahay mana isiinayo. kii kale ayuu weydiiyey, wuxuu yidhi war ma runba kuu leeyahay? waxa uu yidhi haa waa igu leeyahay, mana haysto, haddii aan hel waan siinayaa. ninka wuxuu leeyahay maka yela hadartan ha isiiyo ilaa ilaaba, haddii kan waa la dagaalayaa. ninkii saas marka xaalka ay marayso waxa uu yidhi war ha isdagaalina, dirhamkii oo suufka ku soo iibiyey ayuu kii xaqa iska lahaa siiyey. wuxuu yidhi qaado dirhamku ah, ninka aan ku leed waa kanaaye, ninkan wax damba ku sheegan. maasha allah. ninka uu iska soo laabtay, wuxuu usoo laabtay xaaskiisii, markaas waxay ku dhahday maxaa kugu dhacay, cunto iyo suuf midna maada la imaane, maxaa ku daaray, maxaa kugu dhacaya tiri. markaas baa waxa uu sheekeeyey wixii dhacay baa uga sheekeeyey. fadacat lahu bilbaraka, baraka ayay ugu duceysay, waxay tiri allah ku barakeeyo maasha allah. wa athnat calayhi, wayna ammaantay. suufkii biday, ile markii suuf la sameynaya waa garanaysaa, wixii biday ayay soo aruurisay oo guriga ku dhex firarsma ay soo aruurisay. markaas bay samaysay, waxay tiri bal hoo balkan qaadba, waa intaasoo la helaa wax naga iibsadee. oo soo qaaday suuqa ayuu keenay, cidna kama iibsan. farajaca xasiinan, isagoo murugeysan ayuu laabtay. ninkii isagoo socdo ayaa waxa uu maray nin malaay iibiye ah oo haayo malaay qurmay oo cidna isan ka aqbalin ayuu ag maray. isagana suufkii lagu soo naaco soo maa, ninkana malaay oo qurmay ayuu hayaa, cid ka qaabishana ma jirto. markaasba waxa uu yidhi maa lii araaka xasiina, maxaa kugu dhacay, adigoo murugeysan baan ku arkaaye. markaasba wixii dhacay oo uga sheekeeyey, wixii dhacay uga sheekeeyey inuu dirham oo dadku kala furdaamiyey iyo xaaladii dhan uga sheekeeyey. markaas wuxuu yidhi malaaygan ayaan kaaga iibsanayaa suufkaane, bal noo kala bedel. oo soo qaatay, sidii ayay ku heshiiyeen. haweenaydiisii ayuu u keenay, markaas bay calooshii ka dilaacisay, waaba jawhar qaali ah ayaaba ku jirtaba. maasha allah. wuu la tegey ninkii, ninbuu u geeyey oo waxbaan yaqaano. wuxuu bal niyo ii qiimey. ninka wuxuu ugu qiimeeyey 40,000 dirham, 40,000 oo dirham ayuu ugu qiimeeyey. maasha allah. markaasba waxa uu yidhi anta daciif, min ayna laka haadii, war adigu daciif baa tahay, nin miskiinoo taaga daran baa tahay, xaggeed ka keentay jawhartaanuu yidhi. markaasu wuxuu yidhi rasaqanii allahu tacaala biha, ilaahay baa igu arsaqo yidhi, ilaahay igu arsaaqay. nacam, ee awoodteeda iyo xeelateeda kumaan helin. wuu u jilcay ninkii, wuu u naxariistay. markaasba waxa uu u diray nin kale, wuxuu bal ninkaas u geysto, ha kuu qiimeeya, ha kuu iibiye u geey buu yidhi. ninkii kale ayuu u geeyey, markaas waxa uu ugu qiimeeyey ب80,000 dirham, 80,000 oo dirham ugu qiimeeyey. wuxuu yidhi jawhartan waa qaali buu yidhi, 80,000 oo dirham ayayna joogtaa. markaasba waxa uu ku yidhi min ayna laka haadihi wa anta daciif, war xaggeed ka keentay jawhartan, adigu daciif baa tahay, miskiin taag daran baa tahay, xaggeed ka keentay? markaas wuxuu ku yidhi rasaqanii allahu tacaala biha, ilaahay ayaa igu arsaaqay. runde ilaahay ku arsaaqay sooma, ilaa malaay qurmay inbuu ka soo dhex bixiyey. wuu u naxariistay. ninka ayaan u diray, wuxuu yidhi bal ninkaas u tago, kaasaa ku iibiyo, ha kaa iibsadee. ninkii u geeyey saddexaad loo tilmaamayay
markaas waxaa uga iibsaday ب120,000 dirham. allahu akbar 120,000 oo dirham ayuu uga iibiyey. waa imise 120,000 oo dirham, imise aan bixiyey hal dirham keliya ayuu waxaa u fuushay 120,000 oo dirham. wuu la tegay lacagtii, xaaskiisiiba u geeyey ayagoo 120,000 oo dirham haysto, waa malyoneero wa ayaa nin tuugsanayo u yimid, waxuu dhaha hal ii kaalmeeyo. bismi illaahi rahmaan, waa imtixaan. haddii unbe tujaar noqdeen isla markiiba waxaa lagu imtixaanay saa'il, balse ku guulaysan doonaane. markaas waxay dhaheen maaluna kathiir nucdiihi nisf, maalkeena waa fara badan yahay oo ilaah waxaa u nasiiyey 120,000 oo dirhame, kalbar aan siino ninkan. fadafacaa lahu nisfahu, kalbarkii bay siiyeen. 120,000 oo dirham imisa kalbar u ah 60,000 hamar bixiyeen. allahu akbar, waa dad, waa nin iyo xaas aan caadi ahayn, caadi maaha. 120,000 ee heleen ay 60,000 ay hal mar ka bixiyeen. u fiirso, waa nin miskiin ah. ninkii wuu tegey, marka uu wax yar maqan yahaba ayuu maalkii la soo laabtay. markaasuu wuxuu yidhi lastu saa'ila wainamaa ana malikun min malaa'ikati الsamaaءi الsaabica bacahanii allahu tacaala ilaykumaa. aniguu yidhi mi yidhi lastu saa'ilan, saa'il mid tuugsan mi yidhi, wainamaa ana malakun, malag ayaan ayuu yidhi, malag ayaan ahay oo malaa'igta samada 7 ka mid ah. wainamaa ana malakun min malaa'ikati الsamaaءi saabica, anigu malag ayaan aha buu yidhi oo kamid a malaa'igta 7daas, malaa'igta samada 7 ka mid ah. ilaahay wuu isoo kiin diray isagoo inin dhahayo waad igu shukriseen markii dhibaatada inay haysatay iyo markii aad barwaaqada haysateenba labadaba ilaah waad igu shukrisan buu ilaahay inin leeyahay subxaana wa tacaala. waxaan inuu siiyey arrinkaas abaalmarin aan kugu abaalmarinayo labadii nin ee isdagaalaysay ee dirhamka isu dagaalaysay ee aad kala maslaxdeen darteed ayaan inkugu siiyey. walakumaa jazaauhu ljanna. allahu akbar, abaalmarintiina waxaa u leedihiin janno ayaa linku abaalmarinayaa. malagaas baa saas soo yiri, waa lagu imtixaana, malaga hata lagu imtixaanayay. marka qisadeenii ku saabsaneed maslaxada dadka faa'iida laga helayo halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. waxaan inku talinaynaa inaad laag saartaan qisadan, dadkana la wadaagtaan, janalkana subscribe saara si aanay inii seegin qisooyinka wax ku oolka ah oo inii soo gudbin doona insha allah. wabillahi tawfiiq, wasalaamu llah calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuh.